markaad wax u bixiso alla dartii allah wuxuu kuu furayaa albaabo aadan filaynin. nin sabool ah ayaa ku noolaa tuulo yar. nolol adag ayuu ku jiray ninkaasi. shaqo joogto ah ma lahayn, laakiin hal shay ayaa lagu yaqaanay. mar walba wuxuu ahaa nin duco badan oo alla baryo dhibaatadaas inuu ka saaro. subax kasta marka salaada fajr uu tukado kadib wuxuu fariisan jiray masaajidka geeskiisa isagoo leh, ilaahow adiga ayaan ku rajeynayaa, noloshayda hagaaji. dad badan oo tuulada joogay waxay ku yidhaahdeen, ducada keliya waxu kuuma tari doontee shaqo raadso. ninkii wuxuu raadsaday shaqo, laakiin nasiib darro ma uusan helin shaqo ku filan. shaqo yar ayuu helay oo meel dhismo ah ayuu dhagaxaanta soo aruurin jiray iyo carrada ayuu u keeni jiray fuundiyaasha. maalintiina wuxuu ka heli jiray meeshaas lacag yar. markii uu guriga ku soo laabtay ayuu arkay nin ka sii liita oo aana haysan, awoodna aan lahayn, shaqadaas yarna aana haysan. ninkii saboolka ahaa wuu istaagay isagoo fiirinaya lacagtii yareyd. markaas ayuu yidhi, lacagtan haddii aan bixiyo aniguna ma heli doono lacag dambe. laakiin qalbigiisa ayaa ku yidhi, allah ayaa bixiya risqiga. wuxuu lacagtii oo dhan ayuu siiyey ninkii xanuunsanaa. isaga oo gurigiisa usii socda ayuuna qalbigiisu ka yidhi, ilaahow adiga ayaa ku aaminay. maalintii xigtay ninkii shaqada ka shaqaynayay oo maareeyaha ugu weyn ahaa ayaa dhaawacmay. milkiilihii shaqada ayaa raadiyey qof cusub oo shaqada maamula. mid ka mid a shaqaalihiisa ayaa yidhi, waxaa jira nin aamin ah oo masaajidka yimaado subax kasta. markii ninkii saboolka ahaa la keenay, milkiilihii ayaa ku yidhi, aniga waxaan raadinayay qof aan ku kalsoonaan karo. ninkii saboolka ahaa wuxuu noqday kormeeraha dhismaha. mushaharkiisuna wuxuu noqday mid aad u badan. maalin ayuu xasuustay maalintii uu lacagtii yareed bixinayay. markaas ayuu yidhi, waxaan bixiyey wax yar, allahna wuxuu igu bedelay wax badan.